بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن وناكسن سيدة دنتهين داود يا مركز جوجتان كنا سوى دوادا برنامجكي هداها يدقنكا تضبط كان تلفزيون قرنك الصوماليات برنامجكا هداها يدقنكا تيفيغا تضبط إلهي سبحانه وتعالى دورها لك نوضوحين وكسو غادن دونا دقنكا بيلها بنادريغا دنكا حيراركا دقالكا iyo waliba dhinacyada guurka barnaamijka waxa ay qayb galaya haduu eebir halkan abwaan oday dhaqameed Suufi Xaji Sheegow oo aan rumaysanahay in oo barnaamijka dhageystayaal idinkaga qabtiri karo dhaqanka beelaha banaadiriga ee dhinacyada dagaalka iyo guurka abwaan su'aasha ugu horeysa ku weydiinaya waxa ay tahay laba heerood oo beelaha banaadiriga ayaa diray waxa la gudboodayaasha dhaqanka beelaha banaadiriga iyo wadada u marayana siiqada ama wadiiqada u marayaan qaboojinta dagaalka beelahaasi inkastoo aanay u badnayn hadana de kullay waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala ahayni qalad ka dhaco banaadinku way qaldamaan beeruhu istilaan bal nooga shaqay dhaqamada u yaala beelaha banaadiriga heshiisiinta beelaha dhexdooda ah bismillaahir rahmaanir rahiim oday dhaqameed horta dagaal dhexdhexaadintiisa marna moogahay haddana dhacdaa reer banaadiriga dad isla dhashi oo walaala ee wiliba inay isdagaalaan makasti yani xalkooda laba saddex sano ay gaartaa la arkay olaadooda haa amba dhaxal ay ku dagaalayaan amba xisaab kalaa lagu dagaalaa waa dhacdaa markii saas noqoto anaka waxaa sameynaa waa khawoojinaa waxaan ku khawoojihaynaa waxaan ka dhaadhicinaynaa dacwo khayri inay ahaan oo laga roon yahay waxaan ka dhaadhicihaynaa dacwo haddii mar lugta ula galaan in dhaqaala fara badan meeshaasi ku baxi doono waxaan ka dhaadhicihaynaa sida unaka hadda waxu ognahay dad u ogeen inaad gacanta u geleys aad markii gacanta u gashiin yani dhib kala imaan karaa marka waxaasoo dhan waxaan horta mugu cabsiyaan gelihaynaa jooga waxa waaye walaalihiina nahay anaka wax nii dhaana ma arkeyno ma arkeysiin wax anaka nii dhaano ma arkeysiin dhaxdiina aan galno saan iyo saan u kala jooga wayahay Soomaalida kale beelaha reer guuraaga hamiyiga degan waladahoodu dhimasho iyo dhaawac buu ka dhashaa qasaare baxalaya ka dhashaa in beer la gubo in guriga la baabiyo in deegaano dhan la tirtiro oo wax la soo degsan jiray dhaqan falaaro iyo tumaati ama warmo dagaalada beelaha banaadiriga miyay ka duwan yihiin kuwa kale waxyaaba la soo degsanaya waa ka duwan yihiin waata horta baaqaan leenahay haddaad banaadiriga tihiin haye bir waxaa jira oo sanad dhaqameedka ma aragti dabshidka la yidhaaho oo laisku garaaco teg cayaara looma leeha cayaartii oo sabaxa nin walba ula soo qaadana marka cayaarta ula lagu cayaara ileh waata reer hebelow saanaa yeelaan waaye reer hebelow qadirkooda sumedhayahay migeeya wararnay oo heeskiina aan sii wadnan tegeyna waa dagaal waata halkii laga hor yimaadna ma la dhaafaya meesha waa la saaraa adinta mase anoolaado dagaal xun oo ulaleen isku adeegsahayo xeer noo ah oo laga yaabo hadhowati yani toorey iyo faasas inay gaarto iyo isgaadgaad waaya marka nooc walba waa habnaa waa soo marnay waayahay dagaalkaas ka tusaale ahaan qof baa ku dhimanaya oo kale ama wiil baa ku dhimanaya ama maxaa laga yeelaya qofka dadkaa dhinta xeerarka ka degsan beelaha banaadiriga u yaalahay maxay tahay horta beelaha banaadiriga haddii kan gobolka banaadir beelaha banaadirka oo gobolka banaadir haddii la xisaabo waxay isku imaahayaan dhowr boqol oo qabiil waay
وايه دور بخل بنادري حمر كل جيس لي هدي الحساب شنقاني يحمر ما عرفتي يحيك الأمالها حمر عبد العزيز شبيس عمر ججب هذه وحاب حمرين كل جيس أفرت سيت خويل أو ليش دقمة جاكو أكونال أو بنادري سو قلت لي وحسكوا مدروي وايه أفرت سديت خويل أو ليش دقمة الجوجان مرك لما هذه استجاشة أفرت إلى حكلا سيريسا مكتاي أفرت إلى حلاسا كإنايسا إلا لما بين الحدود اللي قالوا واتا أما كلا هذه أفرت إلى حلاسا رواية حتى شنت الشنقاني أو طمن إلى حويل إيه كان أك إنايسا إلا ولا أنا مكتاي واقرت بلاد الجيش وايه أبو أنا دو مع سن إن runtiin aan dadweynaha ka fahansiisay dhaqanka xeerarka dagaalka beelaha banaadiriga tusaale ahaan waa sax waa beelo fara badan yani waa mujtamac aad u ballaaran banaadirigu inta markaa bulshada Soomaaliyeed ay taqaan wax ka badan intaan ay aqoonin tusaale ahaan moorsho iyo madhabo kala deestilaan oo isku riiqmaan iyo u gurmanaya oo dhexdhexaadina ilaa wax laga yaabo beelo kala walaala tusaale ahaan hadda Soomaalidu markii laba beelood dega gobolada dhexe ay dirirto isla beelo kala gobolada dhexe degan ayaa u gurmanaya oo meesha dhexdhexaad galaya oo garti galaya oo xeerar iyo sharciyo ka soo saaray markii oo bandhawo iyo inta moorsha ay gaarto bandhawo kaligiis horta waa 8 qabiil oo isku darsan waata moorshana sidoo kale iyo kala 7 iyo 8 waaye oo qabiil ah waaye 8 ملح خويل اسبوع دودي دغنتا مقتاي ما سهلنا ارنكو ما سهلنا هي سوركا ما داري غاريسا marka yani hadda ma dhacaan ba abti eesina isfiiraali ma badacaan marshi iyo inta badu ina gacanta saaray ma dhaceen wasa laakiin kuwa kala jufiyaalka yaryarka ma aragtay waay ika istaawahayaan saasa qabiilyaal kale ku soo dhaxgalayaan waa damiha waa laakiin marba hadii moorsho iyo bandhow waa dagaal faraha ka baxay dhawrweyne waa dagaal faraha ka baxay dhawrweyne iyo iskaashato hadii ilaa qolomadii dagaal gasha hadii ilaa waa dagaal faraha ka baxay dagaal faraha ka baxay waa mana qabno waxaan leenahay hataa markii dagaal iyo colaad iyo inta cudur iyo wixii ka yaabna hadii aragno qoloma qabnaa oo khalaab loo galayaan quraan al-akhriya khalaab isgala waa xarooha ilaahay subhanahu afkiisa wax la soo saaraa afkiisa soo baxaa lagu dhaqmaa wuxuu leeyahay aayadahaas yaa hal akhriso sidaas la yeelo waa dhamaanaya dhibkii ilaahay waa مثل hadan kaaga soo khawaafi مثل waxaa dhacday doorashadii عبد الله عيسى الله نحرسته الله نحرسته ليغدا يا بنادرينا سامو اللي يجري اكو ترتمايل اكسنو marka doorashada soo dhowdahay ulama la adeegsaday قرآن بأخرية ديك حرنتها على صفر ديك ولا القاضي إن فرح قشتت أيكو حرنتها بلد كان أو هالبنادر أي كتاليان بينيقاس عبد الله عيسى محلق جويا بينيقاس سيدين ديك ولا القاضي فرح قشو ميلينو ولا القاضي اللي ما هنو وحسروا عايزك سمايا أنك أصورنو وايه marka manaayawa yaasiinka quraanka waa akhriya asaas waaye waxaan u leeyahay dhinaca guurka bilmathal hadan gabar ina soo fi xaji sheego wadoonaya anigu oo aan ahan beelaha banaadiriga waa xaqiiqo inaan xeerka la igu dhaqayo ama la igu maamulayo ama iga imanaya xagga inuu ka duwan yahay midka wiilka banaadiriga oo gabadha ka soo doonanaya salahan laba wiil gabar banaadiri markay is doonanayaan ama laba reerood oo banaadiri ah markay gabdho iska doonanayaan sharciga u yaala markii reer ka baxsana ama qof ka baxsan banaadiri oo gabadh soo doonanaya banaadiriya bal iga shaka xeerka u kala yaala waa mahadsan tahay horta anoo kale maxaa iga rabaa oo gabar ka soo doonanaya banaadiri ma
adigoo lagu laheshiyaha haye gorgortan waa garta gabarta sar qurux badan ma geynaysaa sar qurux badan haa alaab qurux badan ma u dhigaysaa dahab qurux badan ma u gadaysaa lacag fara badan anaka mana siinaysaa laakiin anaka gabar haddii aniga qabo oo nin heer banaadir iga soo jarsado lacag yaraas ii keenaa anaa kabaaya weliba anaa kabaa weliba waan gartay waa la cunaa heer banaadirgiisa yani arooskooda waxaa ku dhunow keliya la keeni karinba waa la cunaa dhowr maalmoodaa la cunaa marka gabarta dadkii dhalay aad dhib ku qabaan reer banaadiriga lacag yaraa loo keenaa iidan xiritaa gabdhihii faceeda yani si faanto si ida rabta loo yeelo waay alii cayaaro fanaaniin alii soo kareeyo hees amaan alii sameeyo ay leedahay man la-aana ma jirayso waa la sameehaa gabar kastoo la aroosayo marka sharciga aniga lagu maamulayo aan banaadiri ahayn waxaa ka fiican sharciga wiilka banaadiriga lagu maamulayo isaga lacag yara laga xeer waaye oo maaragti tolka kusoo faataxaysta waaye gabar intaasaa laga qaadaa garoobna intaasaa laga qaadaa waayo garab haddaan garoob rabana garoob haddaan doonayana heshiisleya sidoo kale laakiin waa lagu khafiifeaha oo si gabartoo kale ma lagu gelayo waata gabadha marka waxaa laga doonayaa lacag fara badan miya gabadha lacag waaweyn laga rabaa adiga shaymatiido gabar makusiiyoon adgeelkis adiga geelkaada korkiisa iska saariyeysaa ama dameeraad saariyeysaa waa wadaysaa naagta adaa qabtaa sharciga islaamka kusiyaa meeshiirtada uu tegaysaa waa gartay waa sax makasino gabar dhaha lagaaga sabraya adigoo oo beri aan meel ku raaceen mal oo lahayn aan meel waxaa leeyahay ninkaan xoolaha le xoolo aloo galo waaya meeqa laga qaadaya marka tusaale ahaan meeqa laga rabaa meeqa lacagta laga doonaya waa imisa un gabadha banaadiriga ka geynaya wallaahi weli si adigu ma ka qayb gashay wiil aan banaadiri ahayn oo gabar banaadiri ah la siinaayo dhowr jeer haye meeqa laga qaadiyay 5,000 waa soo arkay 10,000 waa soo arkay oo dollar 3,000 waa soo arkay waa gartay laakiin anaka $300 noo xaaray hal neef eri xataa ma lagu helayo $300 gabadha banaadiriga xeerka waaye hoos in wax la iska siiyo maayane markii runta la isku sheego 300 inaan wax tariin waa la ogyahay makasino waxa la cunaayo تمني باف حولا لقنا بسكوت انت سو بسكوت على الدواء دول شال الدواء ننع على كينا وحال كينا حولا الخلابريس انا ما دوا العكس انو كليس ما دوا marka waxa jirta xeer khalingees ma yiraaho khalingees gabarta dharkeedi afar boorsa loo geey baabuur dhan 8 boorsa intay geeyayaan waa isku leesaha si dabaalici waxa ku leesaha aheelay wuxuu loo yeeli anigin iyaalay ku dhigaysaa wata marka dadka isku hal ma aha diinta islaamku sina fariiso dadku dhaqmaayana waa jiraa gabarta haddii khaan gaarto oo maaragti wixii lagu yaqaaniba lagu arko diinta waxay ku leesahay xataa mashaajidka geey iska fogay adiga dembigeeda iska dheeray xataa masaajidka geey masaajidka gees kan shisheeye waaye ma leh kan walaal waaye ma leh ma ogtahay sax dad sida diinta haddii gabartaaba ilaahay ninkuu keeniba adoo nin doonin adoo dib ilaahay kuu keeni oo kusii haale dad saasaa jira banaadiri ma laga helaa anigaa ii jeedid naagta ilmaha iyo dhashigan kuu sheegaayo laba gabaray dad kale horteyga usoo dhashay gabartii waa la soo raadsaday gabartii midii weyney waa la soo raadsaday alla sii markii la yirine iidaa diidi waxa tiri aniga yani saaxibaan qabaa anaa lii yimid
adoogii dhalna waa joogayaa looma tegina anaa la yimid waxaan eri horta anaga waxaanaga go-ana horta gabartii nima loo hele nin ciidan waa wadataa yah nin haddii ciidan wadato waxaleenoo roon unaka ina oo madax xanuun iyo inta dacwo iyo inta buuq iyo maalin kastoo yacni cari celis ma fiicnee ninka ciida keensatay inaa la siiyo ee ninkan wax ma haysto guri ma haysto waxaa eri islaanta aniga qabaxa eri hinta dhegeyso adiga sacuudiimu socotiduu haa adiga haddii baxdid inta naagaan keensaa ma ogoshayaa eri mayaa tiri war gabartaada hadda ninka oo rabta ala keenaa eri ana waa soo kor joogsaa saasaa lagu ogolaaday alxamdulilah waa dhaqanyii maanta ilmahooda ilma dhaloyaal waa reer badan maanta haa alxamdulilah waayahay gabadha markaa yani shuruudda intaad ka horteen guurkeedii ninka banaadiga ahayn la siiyey $10,000 uu ka bixiyey haddii dhaqmi weydo oo ay ninkii geyso ku yarto ku kibirto maxaa idinla gudbo gabadhii maxaad ka yeelisaan meelaha kale soona gabadh markay soo cadhooto way celiyaan inta garaaca bay celiyaan adinka maxaa idinla gudbo hadda ka horo gabadh oo naka yani qabiilkeena ah oo adeerna aan uu qumanahay yah anin murusada guursahay nikaax yaa la aaday gurigiisa bakaaraha guri ku yaalaan tagnay markii nikaaxa dhacay ninaa soo istaagay hay erxamirow waa taas gabartaaniiti maanta umarkaan ugu ogtihiin idinka waa kaas wax meeshaani yaalo maaleh asir muxuu ka wada macnaha markaas afartaan taagta aniga waxaa er dhegeyso gabartaan ilaahay ku siiyi maanta asamada ka yeertay inaa oo ininka oo maaragtay oo nikaaxiina noqoto laakiin murusadow ogaada aan eri gabartaan dhaqankeedaad leedihiin maayne dhiiggeedad ma leedihiin saxbaa gacantaa la iska geliyey gabartii waa soo heshiiye waayeen waa soo fureen okay war le kaa celiyaa mogtahay naam war le kaa celiyaa ogaada heer xamarow maanta wax niyaal male ina silaawo ogaada murusadow aa er anigana gabartaan dhaqankeed leed leedihiin maayne dhiiggeeda ma leedihiin ogaada gabadha marka hore imsuu ka bixiyey lacagaa laga qaado fiican marka dabcan macnaha gabarnimooda kaga soo doontay oo gabadha weydin mise gabadha gabarnimo kusoo doontay ha gabarnimas kusoo doontay marka gabadhii buu noqon weyday gabadhii buu noqon weyday dhowr samay dhaqmeen carruur bay u dhashay ma maqlin waaya gabadha marka waa la guursaday gabadhii waa la gelbinaya waa lagu heshiiyey gelbiska marka maxaa gabadha loo sameeyaa markaa la rabo gabadha in reerkeedii loo diro berigii hore mase hadda berigii hore berigii hore waxaas ahaay gabarta khafaa loo soo ijaaraa waaya oo 7 maalmood uu joogayso waata musasho u raacayso ilaa gurigeeda laga geeyo dusheedaa la saaraa mara suwaacil xariiraa la keenaa korka laga gambihaa gabdhihii waa ciyaarayaan tikatacjam bacjam tikatacjam heesay ku cayaarayaan heesyaal kala duwanay leeyihiin hees kala duwanay leeyihiin heesay ku cayaarayaan ilaa gurigeeda naagtaas dusheedaa lagu geeyaa gabarta 7 maalmoodna waa lasoo joogay 4 maalmoodna waa la joogaysaa waa tahay waxaa dhaqan u leenahay ilaa 14 maalmood gurigaada ama gurigay xamarweyne disku yaalo oo gabarta guriga loo guuriyay suuq xoolaha ku yaalo quraacdeeda qadadeeda makasoo cashadeeda xamarweyda laga qaadaa suuq xoolaha baa la geeyaa 4 maalmood waa dhaqan baradin way leeyihiin wiilka 7 maalmood markii arooska ka soo baxo isna 7 maalmood guriga sadegtiisa iska quraacaa meel kale ma tegi karo
ودخل يلا دخل كان وين إلا هذا ويلكو هدو بنادري هو وهدو ويلكو بنادري هاي وحا دخل ولا نهي جوركاس تدور معلومات انت ويلك او اراسك كجرو ويلش صاحب يالكيس او بربارتا ليراها ويلش صاحب يالكيس مدحيك حيرايان دharkayka furahayaan lama gacnayka xiraayaan على بحناكتا وتك صفرته قال دبا guriga dhuxul loo giijiraa ma ka hadli karo si askari amal عند مية loo xiraa ودي كان حول المكان أما بسكت المكان كينا تدو معلومات دبل لغاها معن وادقن كميتا معن تدو هذا مدح لغا صحيرة وكوفير وسوتريرة مركز أراس كصباحا دبكاس مديدي كرو دخن واحد وادقن جري دخن جرو وهدو أسوق بنادري هاي ولي لك هدو هي داعد وكلا أمام معاني وكلا معهن معنا هذا وقت الاسماء للجولات معنا بنادري واي معنا ما نو والله دسكي وين كبوي والله ما تدور بري الواسك دسكو جرو